أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. walaal maanta waxaan jecelnahay insha Allah duu ilaahay awood isiiyo inaan idin soo gudbiyo how to create group item. Inventory assembly waan aragnay faa'iidadiisa waxa uu taran waan aragnay habka loo abuurno waan aragnay marka group itemna inventory assembly kama dubna laakiin in yar bay ku kala duwan inventory assembly mar hadii waa wax la isku dhiso laakiin group item waa itemyo hal group laga wada dhigo haddana la kala reebi karo laakiin inventory assembly mar hadii la dhiso hadii matalan computer kana abuurnay oo kontonka xaba ahaa oo mid walba motherboard iyo waxa aan siinay hadii aan rabno inaan motherboard computerasi motherboard ko inaan kala furfurno kala furfuri karna laakiin computer ahaan baan u iibin karnaa hal computer baan u iibin karnaa laakiin inventory ay group wuxuu ku sahlayaa matalan waxaad ka shaqeysaa stationery waa example ugu fiican aad ku fahmi kartaan stationery waxa yaalo waxaad gadaa buugaag waxa gadaa qalimaan waxa gadaa stamp waxa gadaa everything is about stationery so waxa ku imaad qofkaasi ayaa wuxuu ku yiri customer wuxuu ku yiri waxaad iga iibisaa buuga maxaa soo hoos imaan kara waxa hoos imaan kara qalinka waxa hoos imaan kara qalabka wax lagu cabiro metr sida hadaba qalabka canvas-ka waxa hoos imaan kara okay wuxuu ku weydiiyay printerka maxaa hoos imaan kara A4 waxa hoos imaan kara khadiisa waxa hoos imaan kara keebaladiisa all those marka okay hadii ay isku xirto marka hadhooti qofka printer doo ku weydiiyo printer dhahdo kadib maxaa hoos imaan kara wixii hoos imaan kara baad ku daraysaa marka wuxuu ku oran karaa aniga printer kaliya ka rabaa printer kaliya ugu soo bixin kartaa laakiin hadda computer marka dhahdo oo computer ku soo baxo you cannot divide it ma qaybin kartid waan arki doonaa marka hadda insha Allah aan fiirino kan iska soo deji waayahay quick bookgeena noo kiciya waa kan folderka bee ku jira okay waxaan maleynayaa la fahmi doontaa insha Allah igaraal quick book hore u kacsanaya jiray igaraal naqda waayahay waa kan quick book wuxuu ka mid yahay programada aan laba jeer u kici karin tusaale asoo quick book ku furan quick book kalma kicin kartid laakiin wordka waxa kicin kartaa word kale excel kale access kale waxyaabahaas waa laakiin quick book wuxuu ka mid yahay programada aan kaligiisa laba jeer aan kicin kara isoo ku kacsan mid kale ma kicin kartid way aan fiirino quick book waa joognaa halkee laga abuurayaa maxaa la abuurayaa see loo abuuraa maxaa laga abuuraa waa su'aalo badan meeshtaan horta waxa laga abuuraa item waana garanay item and surface baa laga abuuraa group item sidee loo abuuraa anoo dambayso laakiin maxaa laga abuuraa waxa laga abuuraa inventory waa ina haysataa because of waxaadan haysan totally hadii aadan inventory haysanin you cannot create a group item or assemble inventory assembly ma abuuri kartid because haday markaan inventory assembly abuureynay inventory baan haysanay marka hadda darabna group item ina abuurna we must have inventory because adigu aan inventory haysan badeecadii aad ku xiri lahayd aad group ka dhigi lahayd hadii aadan haysanin way kugu adkaanaysaa inaad abuurto group item waxaan u maleynayaa inay fahanteen marka group item ku dhufo okay maxaa ku soo baxay waxa ku igaraal noqda waxa ku dhufataa item and surface waxa ku soo baxay daaqadii aad taqiinay sida loo abuuro itemkaas ka soo baratay waxaad kale ka soo baratay sida loo abuuro maxaa yiraahdaa in group non inventory party waxaad kale baratay sida loo abuuro inventory party waxa kale ka baratay sida loo abuuro inventory assembly today we are going to create group okay so group ka aan rabnay inaan abuurno waa inaan horta inventory haysana matalan stationery ka soo qaadnay okay new item ku dhufo new marka dhaad waxa abuurtaa inventory part horta soo qabo waxa haysana A4 waxa haysana A4 paper waxa haysana horta wuxuu naga gadaa 0 wuxuu naga gadan yahay 0.07 okay sales keena halka noo gali waayahay
hadda inta waxaan maleynaa waa taqaanaa waa description of register session data fiiri waa maxay waa A4 waa A4 cadaan ah oo aan color lahayn waaye description kaasi waa purchasing okay marka aragtina u cadeysata halkaas ku fiiri description maxay kula duween macnaha kan adiga ka muuqanaya kanna hadhood marka iibinaysa ku muuqana waa arki doonaa insha Allah okay inta imo sales waa gelisay kan la maro inaad geliso sababtoo haddii aad gelisid qofku waxa laga yaabaa hadhood customer-ka inuu ka arko price-kaaga selling price-ka marka selling price-ka lama geliyo inta badan fixed ma hadduu fixed ahayn marka hadhood waa gashan kartaa adiga samaysan kara marka fixed ma aha faraha ka qaata yaa la gelin halkan imaw waxa ay ka yaalo 6,000 xabo waayahay next dheh oo ku weydiinaya kan macnaha wuxuu ku leeyahay dictionary kuma jiro no in the dictionary waa A4 waxa kuma jiray waxa la markaa ignore all ama replace all ignore all labadaba ama close ka dheh bas waa xir maarta A4 okay waxa kale oo ku soo haray galaxy pen waa qalin igara noqda galaxy pen waa yahay ka soco description waxba gelin waxa kale iska dhahaa bis 0.5 description waa faantay macnihiisa 100 xabo ayaa ka yar okay mid kala abuur inventory ne halka imo waxa kale soo haray ink oo ah printer waa yahay wax weeyaan $12 sales halkan geli okay waa 100 xabo kuna u dhig inventory markaas inoo baday halkan ma inkii sama waa yahay waxa gelisaa bookis waa $1 700 xabo ka yaalo waa yahay waxa malayna waa faanteen intaas aan ku eegna markaa ka godo waxba aan rabaa inaan ku daro waxa kale oo ku dartaa qalinka waa qortay buugi waa qortay printerka geli waa yahay okay intaan qaadan marka intaan kaliya ku sameeynaa tusaale inta ku abuuray sama okay hadda new hadda abuuraysa marka group hadda abuuraysa new ku dhufo new marka ku dhufato group halkan ka dooro waa isa sama group ku dhufo group waa maxay marka meter stationery ku dhufanaysa halka stationery waxa arteen abuurto magaca guud ahaan group name waxa group kooda dhigirta ka wada dhigirta ay halkan gelinaysa okay inta imaanaysa maxaa ku hore meteran book waa ka inta xabo ku yaalo haddii aad rabto gelinaysa haddii aad rabin ma gelinaysid inta xabo totalka meteran inta ku yataa quantity gelinaysa halkan laakiin kan haday inaan gelino qasab ay nagu eed kan laakiin hadaan rabno ka degi karno waa fiirinayna fiiri bende galaxy waa kan okay labadan shay kaliya ku fiirino galaxy iyo bank soma way okay leedahay okay way soo tag marka tusaale customer ba ku yimaadeen waan sharxi doonaa 10ka invoice ka gadaal baan ka sharxi doonaa haddana wax baan rabaa inaan ku tuso customer ba ku yimid wuxuu ku yiri wax iga iibi invoice ba ku dhufatay already halka customer magaciisa la gelin doono waa arki doonaa insha Allah 10ka hadda maanan gaarin soo soco halka imo
محوك ودي قلب stationary مركا كرفته stationary مركا كرفته واكن محاكو صوب حي stationary دهدت واكن بوجي يوحكو صوب حي واكن بوجي يو قلنك understand بوجي ما كرتا لهي هل ورنيو بوجي هل حب waxaan ka rabaa ku dhahay hal xab uu already waa gelis iga raal naqda halkan quantity geli okay boogi $1 wuxuu iga leeyahay $20 okay waa ka marka wuxuu ku yiraahdaa qalin mar waa ka deyn kartaa bas laakiin day kama aan deyn karin waa sharxi doonaa group 10 groupka si fiican waxaan u sharxi doonaa markaan invoice ka gaarno laakiin hadda fiiri marka inta stationary gelisay dhahday stationary oo stationary marka ku dhufat maxaa ku soo baxay labadii xab oo ka koobnaa kadib qofku waa save gareynaysa waka waa ila faanta malinaya okay fiiri cash da ku gadanaysa maxaa leedahay marka inta furtid okay stationary marka dhado aad itemka stationary qorto labadii shay oo ku diyaarsan hadii wax badan ahaa ayeen waa arkaysan insha Allah marka insha Allah groupka waan arki doonaa laakiin habkaas ayaa loo abuuraa insha Allah waan arki doonaa okay muxuu kaga duubaya markaas assembly hadaa maxaa abuurnay computer desktop baa abuurnay okay ka gudub okay assembly hadaa wuxuu kaga duubaya ku sheegaya ka gudub assembly wuxuu kaga duubaya ku sheegaya ka gudub okay maxaa abuurnay day desktop baan abuurnay maxaa abuurnay computer baa abuurnay desktop baa ka wixii uu simaana motherboardki iyo ma simaan kara sababtoo building buu isku yahay waa isku dhisay computerkan laakiin stationary ma isku dhisno waa soo group ahaan baa ka soo wada dhigtay kaliya hal meel ka soo muuqalay dhahday bis waana ka soo muuqdo waa ka bis faan marka kan waa kala reebi kartaa bankan waa ka reebi kartaa waxa gali kartaa buuga or buuga ka reebi kartaa galaxy baa gali kartaa maxaa kala sameyn kartaa adoo stationary dhahin waxba dhahinba qofku waa waxa sameyn kartaa waxa kale sameyn kartaa ben waa ka iibi kartaa simply I'm sorry ben kama iibi kartaa igaraan noqo ben kama iibi kartaa waa ka iibi kartaa ben yaa ku diiday ben waa ka iibi kartaa ana waa saxna okay ben waa ka iibi kartaa laakiin hadii aad ben gelisid muxuu ku leeyahay statement buu ku soo qoray statement wuxuu ku qoray delete this group and all member item from transaction I mean kama iibin kartid hadii aad rabto inaad ka iibisid kan group buu ku jira groupka horta waa inaad keentaa groupka waxa oo madax u aha hadii aadan keenin fadlan ka tirtir caadi u iibi oo ka bixi groupka ku darin ala ay kula xaal groupka waa maxay waa in wixii wuxuu ku fudeenayaa inta alaab isku group ah ina hal group kooda dhigto maslafan inta alaab midna hadda waxa ka shaqeysaa meel spare parts ah oo qalabka dhisayna baawurta ah tusaale qof baa ku yimid oo liya keeno ku yiri olida motorka maxaa raaci kara waxyaabaha raaci kara essentialka ah ayaad hoos u gelinaysaa hadhowto qofka olida kaliya soo iibsan karaa adi markaa maxaa ku fudaaday waxa ku fudaaday inta alaab taalo ayaad arkaysaa automatically ah maxaa kale inta hadhowto raadi lahayd olida maxaa raaca ma filter baa raacda ma wax inta gilgilid ay already waa arkaysaa statement-ka ka arkaysaa mid noo iibin kartaa oo hadii kale waa ka reebi kartaa hadii guud baa ugu iibin kartaa waad arki doontaa insha Allah marka casharka invoice-ka in gaarno insha Allah mar labaad ku soo celin doona insha Allah casharka haduu Ilaahay yiraahdo casharka hadda waad fahanteen umaleynaya habka groupka loo abuuro item-ka laga abuuro new leeyahay new marka la dhaho halkan group laga doortaa waa already group marka laga doorto halkan shayga group akooda ka dhigi kartid oo waa kan fiiri use waa kan fiiri egg groupka faa'iideysa lagu sheegay halkan akhri fiiri use to quick enter group of individual item look on an invoice مثل okay what is difference between alwir marka halkan ka sii akhri fiiri faraqa u dhaxeeya between group and ensemble waa maxay waa kan farq u dhaxeeyo waa maxay halkan lagu sheegay fiiri arag waa ajeeb waa wax ajeeb ah fiiri halkan lagu sheegay farq u dhaxeeyo waxa lagu fiiriyaa group can include any item except other group
other groups. Look, include waxaa ku dari kartaa any item kasta oo marka laga reebo groupada kale. Okay, can contain any of the following item tables: surface, arag, party, inventory, assembly, non-inventory. markii la rabo inaan isku waan arki doonaa cashirkan waan arki doonaa. Okay, enable you to printer on cell form individual item, arag waa waxaan soo sheegay, laakiin printer only assemble. Look, kan wuxuu ku suurtagelinayaa weer fiiri, arag halkan aniga hadaan sheegay groupka wuxuu ku suurtagelinayaa fiiri meesha laga hadlaa inaa fahantaa fiican. fiiri groupka wuxuu ku suurtagelinayaa fiiri markaa fiirsid groupka waxyaabaha ku suurtagelinayaa fiiri inta haddii tusaale saleskan fur halkan maxaa ku qoran item tusaalaan ku tusaya inta haddii oo haddii aad ku qorto stationery muxuu ku soo bandhigayaa stationery muxuu ku soo bandhigayaa fiiri wuxuu ku soo bandhigayaa dhammaan laakiin waxa uu ka koobnaa laakiin hadda computer dhaho tolo muxuu isoo bandhigay fiiri waxa uu ka koobnaa muxuu igu soo bandhigi waay iima soo bandhigay fiiri arag motherboard desktop motherboard wuxuu kala koobnaa memory wuxuu ka koobnaa waxaas ka koobnaa itemada oo ugu koobnaa muxuu ugu soo dhigi waay wuxuu ku yidhi enable you to printer on the cell form individual item individual ayuu ku soo bandhigaya laakiin kan waa maxay printer only assembly. fiiri kan wuxuu ku soo dhigay si building asoo ah laakiin kaas wuxuu ku soo bandhigayaa waa waxyaabaha lagu kala garan karo groupka iyo assembly laakiin waa isku xir labadaba laakiin markasta groupka ayaa ka fudud xagga markii la kala dooranayo item loo kala dooranayo. waxaan u maleynayaa sharxaada aad baan ugu fogaaday casharkan waa fahanteen anigoo Ali Asad Sharif Nuur ay casharka idin soo gudbiyay waxaan idin soo diyaariyay programkani Progress Education Group. Assalaamu calaykum.